السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الهواء إذن سلامي ميلو بدون دافع كجوكتين صور ولا برتي اليوتيوب كانوا حقيقة. إن actually ما أنتو حنجي على سينا كهالله work experience إيجا أو دي في لو طريقة. أنا جي على سينا كهالله. إن هروا أقصو هالله نجي على هاي ما دام الفيديو ممكن يكون بتان ما كان جرين كرتيب لكن I hope إن كسو هالله إن أد أجي على هاي. إن work experience إيجا لسكاربو. work experience إيجا 2 years كأه وضدك بدنا الشيء oo dhahaan waxbarashada anagani waa sii wada weynay work experience-gaas rabnaa. Work experience-gaas markay noqoto I hope inaad akhriseen aan jecelahay xaggaan idin soo dhigi doonaa inaad akhriseen aan jecelahay yacni requirement-iga. Waxaa jira iskuulo farsamo gacan ayaa jiro oo qofku wax ka baran karo markuu ka barto ka bacdi oo ku shaqeynaya xirfadii haddaad ka shaqeysid sometimes waa la ogol yahay sometimes lama ogolo. waayo waxbarashada horta dadkan xooga aad waxay u saaraan waxbarashada 12 class oo qofka soo dhameystay ama 8 form 4 qofka soo dhameystay aad u jecel yihiin aw rabaan ama qofka primary markuu dhameeyo iyo form 4 kiisa dhameysto labadaas 10 sano 12 sano qofka inuu soo dhameysto ay muhiimad u tahay waxayna muhiim uga dhigayaan qofkan dulqaadka iyo samirka iyo maybe oo lagu soo dhiganayo ay uga dhigi karaan ayaa asleeyahay aniga marka maskaxiyan ka fikiro adiga si normaliyan u fikiro. marka work experience la iska rabo markii si fiican aniga u research gareeyay waxa waaye dadka marka la shaqeysid maartay hay'adaha NGOs-ka skills-ka ay rabaan ama dadka waxay ku shaqeeyaan amal inaad kula shaqeysid humanitarian ma yiraahdo lagu shaqeeyo ay rabaan. marka haddii hay'ad ka soo shaqeysay haddii dukaan ka shaqeysay experience ma lihid dukaan qof walba qaban karo ka shaqeyn karo okay ma macaan qof walba ka shaqeyn karo. maybe cooking-ka hadda cunto karinta qaanid oo hospitality school ka baxda oo adiga ka haysatay diploma ka haysatid waa okay. teeda kale Soomaalina waa isla ognahay ma laha meel oo lagu baranayo hospitality ma laha oo cunto karin iyo cilaansaar iyo lagu baranayo oo official magac leh ma jirto. haddii ay bixisay maaragtay UN kan qaar bixiyaan ay jiro oo waxbarashada dadka qaar ay shahaadooyin siiyaan Red Cross camal way jirtaa bisha cas way jirtaa. marka wadamada leh hadda Kenya Red Cross ay leedahay Soomaaliya waxay leedahay bisha cas. marka kuwaas camal hadda meel ay ku tareen gareeyeen jirto possible in la qaadan karo maadaama ay hay'ad tahay oo NGO tahay in la qaadanayo ayaa possible ah. laakiin shaqooyinka badan ay qaadanayaan experience-ka ay badan rabaan waxaa la experience-ka oo ma aragtay hay'ad u soo shaqeysay mar hore inaan idin soo sheegay video noocan ayaan jeclahay. marka shaqooyinka dadka soo shaqeeyay 2 years and plus waa ku qaadanayaan. driving doesn't make matter oo ma aragtay skill ma aha qof kasta baran karo driving in qof lagu qaadana ilama aha inta sidoo doonto ku shaqeey laakiin muhiimada waxa waaye inaad skill ka badan leedahay oo high school dhameysay ma aragtay waxbarashada maybe marka driving kaasna waqti badan ku jira aad dhihi kartid ama track la wada dhihi kartid waa meesheeda. marka xag waxbarashada ama marka xagga waxbarashada loo fiiriyo oo work experience-ga aniga waxbarashada ay la rabo wax experience shaqada la rabaa badnaanahay. markii koowaad la apply garanayo meel laga dooranayo ma jirto waxbarashada just high school no diploma dooran kartaa ama high school diploma dooran diploma laga baahan no degree adeysa ka bacdi DS2 sida ku guuleysay DS2 sigistiga ku qeexi doontaa. marka meeshaas ku cadeynaysaa ina wax experience leedahay xirfadada waxay tahay meelahaas ku qeexi doonta insha Allah bidin karim. marka dadka DFB 2024 winners sugay insha Allah sanadkan aan ku jirno bishii shanaad 6deeda haduu Ilaahay na gaarsiiyo ka fiirsada insha Allah bidin karim. waa experience-ga haddii hay'ad soo shaqeysay ama hay'ad shahaado bixisa ay haysatay waa possible oo ku shaqeysay maybe 2 to 3 years ka shaqeysay waa okay. marka haddii aan ka shaqeynayna waa experience inaad dooratid ilaa ma qubno. waxbarashadana waa inaad high school haysataa anaga ma garanayo Soomaaliyeena waxa anaga na haysto actually problemka aad noo haysto ma garanayo waxbarashadeena kale marka la qiimeeyay qof maskaxiyan qiimeeyay waxbarashada waxa yeelayo dalkeena oo dhisneen ayaa yeelay iyo dawladii aan hagaagsaneyn haddii dawladda hagaagsanaan ilama aha from 1991 dadka dhashay ilaa ay hadda jiro 30 plus jiro ilama aha haddii dawladda dhisnaan lahayd shaqo way haysan lahaayeen waxbarasho fiican way haysan lahaayeen. marka waxbarasho la'aan kuma dhacdeen dadka ku nool maybe non Eastern province oo Kenya and I hope from 1991 wixii ka dambeeyay dadkaas waa la accept gareynayo oo la qaadanaya. Ethiopia ku nool Somali state
sidoo kale ayagana shahaadooyinkooda waa haystaan waxbay barteen iskool way aadeen marka dadku wax baranin iskool aadeen waa dadka xaggan ee koonfur aan joogno ayaana wax baranin oo joogaan yacni oo meesha ku nool oo waqti ku qaatay aanan wax baranin dadka kale laakiin oo maybe wadamada kale joogo waxay bartaan xataa soomaalina at least is better soomaalina waxbarashadeeda waa la aqoonsan yahay marka shaqo laakiin oo experiencegeeda oo lagaa qaadanayo waa kuwaas un hay'adaha inaad u shaqaysid ama inaad macalin tahay waa skill macalinimada oo wax bari kartid maybe language bari kartid ama mathematics bari kartid waa skill marka qof wax baranayna de maad qof inuu macalin noqon karo ilama aha marka waa sidaa insha Allah bidin karim skillkaaga oo maaragtay work experience-ga cilaanan saare aqaana waxa saare aqaana 100% waan hubaa haddii haye lagaa dhaho oo meesha tagtid oo dad Soomaaliyeed ha noqdaan ama dad ajaanib kale oo cilaanka jecel ha noqdaan oo marinaysid oo lacag ka qaadanaysid lacagtaas adigana qaar ka qaadanayaan oo maaragtay ay muhiimadoodu waa inaad adiga income soo gelisaa ayagana wadanka canshuur tax payer inaad noqotid oo canshuur bixisid waay marka wax ayaga canshuur kaga qaadi karaan ay work experience-ga ay fiirsadaan kawaan hadda ka shaqeysa xataa at least kawaanka somehow experience uu noqon karaa dukaan laakiin ma noqon karo marka insha Allah biidhnillaahi kariim waa markii iska normal dhahaad yani ka gaarsiin kartaa dhaho insha Allah biidhnillaahi kariim soo joojinaya wassalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh